كتابك قاعد تسارع وحضها يقدر بدها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كدارنا مقع إلهي إنان سدا عدأ وإلالينايو دستورك يشروع ذا دلك إنان أقوتو ضمان حلك إيغا سارن حفيزكيغا كجرتو دنت عدالة أو كلية وبالله التوفيق. markuu ugu horeyso horta waxaan kugu hambalyeeynayaa mas'uuliyaddan culus oo aad soo doonateen oo imtixaan u gasheen ilaahay nasiibkiina uu ka dhigay. waxaan kugu hambalyeynayaa dad tiro badan oo reer koonfur galbeed ah gaar ahaan reer gobolka shabeellada hoose ah ayaa soo raadiyey imtixaan galay. markuu ugu horeyso aqoonta aad ku hesheen iyo nasiibkii calafkiina ay noqotay waxaan leeyahay hambalyo. ilaahay mas-uuliyadda la idiin dhiibay oo cadaaladda laynka raba ah ilaahay ha idiin fududeeyo hana idin waafajiyo waajibaadkii xaqa ahaa. intaas kadib dalkan iyo dowladnimada waxay ka bilaabataa cadaalad. haddii cadaalad la waayo, haddii garsoor la waayo, haddii maxkamad dadka adigana waxbaa leedahay adigana wax malihid dhahaysa la waayo, adiga waa gar daran tahay adigana garaa leedahay la waayo, isku midaa la noqonayaa. cadaalad darradaas yaa waxay keenaysaa in ilaahay waana arkayaa lagu dumo oo dhibaata ay ka dhacdo. marka sidaas darteeda maamul kale aan ka horreeyey oo garsoorka gobolka shabeellada hoose ahaa waa la kala diray. haddana adinkaa imaadeen way soo shaqeeyeen shaqadii ay soo qabteen. annaga hadda saasay ahaayeen ma dhahayno, waa mahadsan yihiin intay soo shaqaynayeen. dad mas-uuliyiin oo shaqo fiican soo qabtay ahaayeen. gobolkaas xaaladiisa iyo daruuftuu ku jiro iyo culayska saaran iyo marxaladaha uu ku jiro darteeda yaa qasab noqotay in garsoorka la bedelo, garsoor cusub la keeno. ujeeddadana ay tahay dadkaas inay helaan garsoor cadaalad ah, aysan u baahanin inay aadaan garsoor dad kale ay leeyihiin markay adinka inka waayaan cadaaladda inka waayaan. marka mas-uuliyaddan saan u culus waxay u baahan tahay dadkii loo dhiibayna inay ka fikiraan, ilaahayna uga baqaan, ilaahayna ay uga baqaan, si gooni ahna ay uga fikiraan. garsoorka iyo maxkamadaha iyo xukunka soomaaliya oo dhan yaallo waxaa saldhig u ah shareecada islaamka, waxaa saldhig u ah diinta islaamka. waxaa kale oo looga shaqaynaya waxaa weeye xeerarka kale oo dadka soomaaliyeed ay qorteen. marka iyadoo sidii sharciyadda ay u taallay looga shaqaynayo, go-aanada iyo dadka u samafalkooda iyo u garqaadisteeda iyo ka shaqayntooda garsoorkooda aaday muhiim noogu tahay. ishaana ku haynaa waxyaalaha dowladnimada lafdhabarta u ahayna ka mid tahay. dowlad aan cadaalad iyo garsoor lahayn dowlad maaha. marka waa la ii yimid, nin baa ii yimid, waxbuu ii sheegay, waxaan rabuu i siiyey, wixii ii sheegay baan adaa la erin, waa iga tegey. kii kalaa yimid, kii kale markuu yimid asagana dacwooday, markuu dacwooday asagana waxaa la yidhi haddana adigana adaa leh. dadkii luquntaa la suu geliyey wax aanan si dhab ah loo baarin oo cidda leh iyo ciddaan lahayn aan la ogaanin oon raadraac lahayn
cidna yaan loo xukumin xukunna yaan lagu degdegin marka inta uu sheegay guddoomiyaha ayaan qabaa garabkiina allaha galo dee waxaa idiin joogo dad khuburo ahoo wax badan maxkamadda ka soo shaqeeyey guddoomiyaha maxkamadda iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed aad joogaan ayagaa taladoodii haysataan wixii daruufihiinna iyo siyaasaddiinna iyo maamulkiinna iyo baahidiinna ahna wasaaraddii baa joogto idin kaalmeynayso oo xiriirka caalamiga idin samaynayso maxarumihii lagu shaqayn lahaa sidii lagu heli lahaa in kala shaqaynayso nidaamkii iyo siyaasadihii lagula shaqayn lahaa in kala shaqaynayso marka waxaan u baahannahay inaysan mar dambe cabasho iyo jahwareer iyo isqabqabsi iyo xukunno isdaba dhaafayo iyo qas aynan maqlin inay ka dhacaan garsoorkaas gobolka shabeellada hoose cabasho dambe aysan ka soo yeerin waajibaadkiina qabsataan waxay idinku cuslaadana aad kala tashataan hay-adihii kale oo in ka sarreeya aad kala tashataan aada iyo aada u mahadsantihiin shaqo wanaagsan garabkeenna allaha galo annagana waa idiin soo duceynaynaa waajibaadka lainka rabana siduu yahay inaad u gudataan oo weli adinkoo ilaahay uga cabsanaayo aada fulisaana lainka rabaa aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu